waxa weeye marka waxa la yiraahdaa ma xigmadu waxa jira tiraahdaa toolkaynu sameeynaa toolkuna isaga marka dambe inagana sameeya toolku waxa weeye telefoon baynu sameysanaynaa marka hore binaadna sameeya haddana kulliyan telefoon u baahan telefoon laan ma socon karo toolkii baa media haya media waa toolkii warfideenka waxa loo dhiibay toolkii toolkaas marka waxa la rabaa markii hore inaga binaadna sameeyay laakiin hadda inaga waxa la rabaa toolkaas inuu wuxuu loogu talagalay inaan qabano waxa weeye binaadna inuu bedela loogu talagalay dadkeenuna meeshu marayo wad garanaysaan change-ga uu baahan isbedelku uu baahan dib badan baa haysata dibtaasna waxa weeye toolkaana bedela adduunyada Rwanda way naga dameysay dagaalka sukay inoo 90kii baynu galay 94 bay gashay maantana ciidamada Rwanda waxay joogaan Suudaan oo nabadgelyo inana wali inoo waxaanu ka bixlaanay Burundi la inoo soo diro dagaalka inaga dameysay baa dalkeena joogta maxaa bedelay waxa bedelay meediyahooda bedelay anu meediyaha markaan meelaha istaago anu ma amaano meediyaha Soomaalida waa naqdiya waana kamid ahay sababta uu naqdiya wax way ana kamid ah marka ilaa ma xigsan karo maxaa noo naqdiyaysa lama oran karo waxa weeye marka waxa weeye dalkeenu saaxiibayaal 25 sano ama 30 sano dagaalku ma jiraan hadeen wariyaal fiicanna sababta waxa weeye Rwanda iyo Burundi waxay kaga bixeen meediyahoodu wuxuu qaatay saxaafadda nabadda dadkoodana nabad bay u jeeyeen inuu saxaafadda colaadan qaadan Kenya 2007 markii doorashadii rabshadu ka dhacday oo ay islaayeen laba calaamad dhacay TV-ga waa laga mamnuucay live dad dhiig daadanay in live la tabiyo waa la mamnuuc waa la joojiyay tan labaad waxa la yiraahdaa waxay halku ka dhigteen dalkeena aan jecelahay aan badbaadino Mareykanka 2011 markii ay dhacday 11 September waxay qaateen America under attack saxufinta Mareykanka oo dhamay Soomaaliya maxaa qaadateen idinku maxaa qaadateen reerkayga waxaan qaateen ma sheegi kartaa maya waxay sheegay nin sheegi kara ma jiro waxa marka waxaan leeyahay Faadmo TV qaran baa lagu dhiibay hadda waxaan arkayay waxyaabaha inuu beenna waxa kamid ah af Soomaaliga hadda ninkan markuu hadlayay eed kuma leh beeldaajaha magaciisa xun buu akhri maxaa u malaynaysaa isaga keligii maaha inta qof oo waxaanu markaa u yarana 5 kun oo wariyay waana 5 kun oo wariyay markay hal maalin wal maalin af Soomaaliga mid wala mar u gafo intee gaf baa dhacay maalinta 5 kun oo gaf baa dhacay markii lagu celceliyo ilmaha cusub oo yarka oo inaga maqlaya muxuu inaga baranaya gaf miran buu inaga baranay inta nabadii iyo wixii kale la gaarin balaayo inaga baranay marka waxa weeye afka waxa loo oranayaa hadda waxaan xusuusinaya kelmadu ay maalin walba isticmaalaan waxay leeyihiin kala fadhigii 36 oo baarlamaanka furmay kala fadhi ma siyaasiyiinta ma nood garanayaan meediyaha warfaafinta dad baa xukuma ma oranayaan waxay kala fadhi waa colaad waa wada iska soo horjeed waxaan leeyahay baarlamaanka kala fadhi waa maalin walba ilaahay TV-da dhageysta raadiyaasha dhageysta waxay leeyihiin kala fadhigii Soomaaliya furmay kala fadhigii reer baa furmay war ummadda ma kala fadhido waa kala fadhi waxyaalaha dhacay kamid marka waxa weeye maaragtay gafafka aynu sameynayno saxaafadda aan ka sameynayno waa badan yahay faadumana waxba tari mayno haddaynan waxaas qaladka aynaan kala qaban iyaduna haddaynu hogaamin fiican la imaan barnaamijku wuxuu rabaa editing waa ogahay TV-da iyo waa buuxina time baynu buuxina content ma buuxino waxaanu ka hadalnaa content ma waa time kana waxa rabtaa dhihi kara waa iska tururug waa wax laga faa'iideysanaya mal ummaddu waxa ka faa'iideysto TV-da iyo meediyaheena inaan isku dirno maayo waxaynu ka faa'iideysanaa laakiin Allah na baday marka waxaan kugu talinayaa aniga horta waxa weeye editinka waxa la yahay editorial judgment-ga aad u xooji Yaasiin baa kaala hadlay TV qaran mar haduu yahay wararka la keenaya waxa ka baxaya adiga agtaada oo la keenayo bal dhinacyada kale waxa ka imanaya yeelkooda agtaada waxa yaala ko adkow af Soomaaliga ilaali siyaasadda ilaali dhaqanka ilaali diinta ilaali markii meediyu waxa weeye watchdog waxa weeye waa nidaam ilaaliye waa meediyu waa nidaam ilaaliye dawladda ka mid ah ruuxeeda waxa la ilaalinayo power iska jira oo executive-ka legislative-ka iyo judiciary-ga jira division of power bay leeyihiin cidda balance-ga sameeya check and balance ku sameeyay meediyaha waa waxa kale oo aynu leenahay waxaynu nahay civic forum baynu nahay madal bulshada ay ku doodo baynu nahay marka waxa la rabaa madal fagaara fiican oo bulshada ay ku doodo aqoon ku dhisan waxa la rabaa dadkeena aqoonta leh meediyaha isu keena ma inaan juhala ma wadanin dad aqoon la inaga buux dadka aqoonta la yaa raadinay inoo imaan mayaan inaga la raynaan doono haddaynu markay inoo u jahirsanaan TV-da soo fariisino oo habeen walba aynu ka sheekayno reer la isku xixinayo la isku xuqinayo Latin America waxa ka dhigay loo la isku diro iyo digaag la isku diro ummadda Soomaaliya loodi iyo digaagii baa laga dhigay
marka waxa la rabaa inaynu dadka aqoonta leh oo ahlo dhikriga oo ahlo xikmadda oo ahlo aqliga oo dhaqanka wanaagsan leh oo akhlaaqda wanaagsan way aamusan yihiin iyaga kuwa aamusan inuu raadino kuwa qaylada badan aan joojino wax kalena way idin sheegaya wariyaashu waxay soo saaraan siyaasi fawda laakiin bulsho ma soo saaraan waxa idin leeyahay oo idin kula talinaya bulsho aan soo saareen iska deeyna siyaasiyiinta fawdada soo saaridooda bulsho ummadda iyaga ku hiilinaya waxa kaloo jira waxa weeye arrimo badan oo noocaas ah inoo yaala marka faadum waxaan leeyahay hadalku waa badiyay Allah ku fududeeyo waxaan kula qaban karaa kula qabanaynaa inta kula shaqeysana waxaan leenahay gabadha yaan la culaadine halala shaqeey anu